anigu waxaan ahay qof afkeeda iyo adinkeeda ku caddaxsan karta bal ila daawada clipka ugu horeeyo diinka ama diinka saad u garanaysaanba waagii hore wuxuu ahaa tiir jilicsan oo wax walba u nugul shimbira u tashtay oo waxay yiraahdeen berita halkaasi ayay qadada ka shidan tahay diinkii baa loo soo sheegay oo waxaa lagu yiri diinow waa lagu tashanaya saadi diinku muxuu ku jawaabay wuxuu yiri meeshii la igu tashanayay soo ilaahay ma joogin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان الصحابة قيمها يقدرين تيجا مدن داونا يسو كحرن يوتيوب channel كيجا لكي وعايز بودكاستي وحان إذن لا يهي سلام سري إيجا قدومة طبعا مركي آدي عركتان وحد سليدهن لكي محايكا هاد لي دونتا لكي دقال كما هاد ليسو اسقب سنة waa sidii marka horeba aan ballanta aan ku qaaday meesha ma yaalo laakiin maanta waxaan idinkugu soo galay oo aan rabaa in aan idin la wadaago saddex arrimood saddexdaas oo ay kala yihiin mid waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed midna waxaan la hadlayaa dadka dhaqanka iyo diinta toona aanan haysan balse kula sheeganaya dhaqanka iyo diinta tan ugu dambayso waxaan la hadlayaa dhalinyarada YouTube leyda oo aan siinaya talo iyo dardaaran haddii aan kala qaado waxaan ku horumarayaa shacabka Soomaaliyeed qof markuu wax kuu soo diro waa inaad ka fikirtaa saddex arrimood kow waxaan laguu soo diray ma yihiin wax xaqiiqo ah oo la aamini karo labo qofkan la wareejinayo ma ka suurtoodaa arrintan inuu sameeyo saddex waa maxay ulajeedka laga leeyahay oo ka dambaysa arrinkan maalmahan waxa social mediaha la isla dhex marayay sawirro iyo muuqaalo oo been abuur ah oo magacayga la rabo in lagu wasaqeeyo qof haddaad rabto in aad iska dhiciso ceebtiiso sax ah balla goobaa oo naaganimadaada la isaga celiyaa waxa la igu soo waaye sigaar inaan cabo waa la igu soo waaye jaad inaan cuno waa la igu soo waaye xashiish inaan cabo waa la igu soo waaye qamri inaan cabo waa la igu soo waaye shiisho inaan cabo waa la igu soo waaye intaas marka la igu waayay bay waxay danto idinku kaliftay in aad soo bandhigtaan muuqaalo been abuur ah war haddaad been sheegaysaan been run u eg baa shacabka lala hor yimaadaa haddii ay xabadaha idinka dhammaadeen yaa qaydheemisha igu soo ridina ee isdhiiba aniga waxaan ahay marwo sharaf leh ceebna ii noqon mayso magac xumana ii noqon mayso waxyaabo aad soo maduufukayseen oo soo dhoodhoobteen anigu mar walbaba la kixaajo wacays baan ahay markaad wax walba aad ii weyseen oo xumaan ah mase khalad ah maanta halkaas miyaa maraysaan haddaad awoodi kartaan markaad meel walba aad ceeb aad iga soo weyseen weeye haddaad awoodi kartaan waxaa samayn lahaydeen ma garanaysaa
hawadaas ilaahay sameeyey baad iga xiri lahaydeen. shacabkaan usoo laabanayaa muuqaaladan xunxun oo gabdhaha Soomaaliyeed lagu qaybinayo social mediaha idinkuba qayb baad ka leedihiin ee naagaha xunxun ay qaybinayaan. haddii adiga subscribe uusan ku ahayn dee adba ma arki lahayn soo maaha. maxaa yeelay telefoonkaaga wuu kugu soo dhacayaa subscribe markuu qofka ku yahay YouTube-kiisa. waad la socotaanoo anigu dabcan caruur baan leeyahay, idinkuna caruur baan leedihiin intii leh intaan haysan allaha siiyo. caruurtii baa ku dheelaysa telefoonada. cunugaagii isagoo ku dheelayo haddii ka war muuqaal fool xun uu u soo dhaco ileen subscribe buu ku yahay oo cunugii uu furta ka war qaladkaasi yaa galay. caruurta ma gelin ee adiga shacabka ah baa sameeyey. maxaa yeelay qofka xun subscribe lama yiraahdo ee waa la iska indhasaabaa. haddii hadda uu ku yahay subscribe qof dhaqanka foosha xun faafiya oo diinna aanan haysan right now ba unsubscribe iska dheh. saa maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay qofka subscribe marka aad leedahay waa qofka inuu yahay qof adigu wax aad ka faa'iideyso, wax wanaagsan oo adiga kaa maqan. hadday fikrada noqoto, hadday noqoto waxyaabo adigu ku anfacayo, qofka waa inuu yahay qof faafinayo, markaasna adna aad ka aqoon kororsanaysid. laakiin qofkii faafinayo akhlaaq darro iyo edab darro uu gurigiisa kala yimi dee adigu maba ahaba inaad subscribe u samayso mise aad u saarto. marka waxaan idinkula talin lahaa kallaki ahaan intii dhaqanka xun faafisa mase hadallada xun ku hadasha fadlan unsubscribe iska dhaha oo kala laabta subscribe-kiina si ay iyaguna waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kusoo hadeeyo markii wax daawado ay waayaan in ay saaxiga ay keenaan. anigu waxaan ahay qof afkeeda iyo adinkeeda ku caddacsan karta. laakiin waxaa jira gabdho ciilan oo waxyaabo qaldan saas baraha bulshada loogu soo daadiyay oo aanan afkana aan ku caddacsan karin, xoogna aan ku caddacsan karin, mar walbana looga qaataa fuluus. hadda waa lacag baa looga qaataa muuqaaladaasi. balse caawo waxaan idinka ballan qaadayaa naagahan xunxun ee social media ku jira falka xun ay faafinayaan oo dumarka Soomaaliyeed ay ceebeynayaan iyagu farxad u mooda in aan u kaba gashto oo kaba dhaadheer aan u gashto anigoo kaashanayo shacabka Soomaaliyeed inta nadiifka ah in aan beentooda banaanka aan keenno, fashilino arrintoodana bartaas ay ku dhamaato. waxaan maqli jiray qofka daacadda ah ciidda u dhaqaaqda. waxaan ku faraxsanahay dhalinyaro badan oo YouTube ley ah iyo shacabkaba in ay isla markiiba hore ka fahmeen been abuurka baraha bulshada la waday oo ay ka dhiidhiyeen hadday comment tahay iyo hadday muuqaal live ay usoo galeenba intaba. horta aad baan idinkaga mahad celinayaa. waxaan idinkula talinayaa dhalinyarada YouTube leyda ah, ogaada shacabkaad indho u tihiin oo anigaba aan ka mid ahay idin daawado. marka been abuurka maanta la iga sameeyey wuxuu ahaa mid si sahlan lagu garan karo. waxaase nagu soo fool leh adduunka horumarayna ka qaydisiiyey haddaad la socotaan wax la yiraahdo
deep fake systemkaasi oo isticmaalo artificial intelligence ama AI saa u garanaysaan. haddaba waxaan idinkula talinayaa dhalinyarada YouTube-leyda in systemkaasi waqti aad gelisaan, kaga faa'iidaysaan, casharo aad ka soo samaysaan, bulshada indhaha u tihiin, si berri qof magac leh haddii sidan oo kale lagu sameeyo si aysan degdeg uga falcelin oo ay ka fiirsadaan. arrintaanse ma qusayso fanaaniin oo keliya, waxay qusaysaa dadka siyaasadda ku jira, waxay qusaysaa oo ay ku dhici kartaa dadka diinta faafiya, waxay kale qusaysaa idinka YouTube-leyda ah. marka aan ka wada feejignaano oo shacabkeenna na daawado aan u soo bandhigno wax waliba oo dhibaato ka imaan kara. tusaale yar baan idinka siinayaa caawo sida ugu fudud ee dadka loo qaldi karo. bal ila daawada clipka ugu horeeyo. Huzzah! Alas, why should you believe me? Much like Odysseus and his encounter with the Cyclops Polyphemus, I too am nobody. I am a fake bear. A deep fake, to be precise. And as you can see, even I, the Prime Minister, can be affected by them. Yes. The unregulated power of technologies like this risk fueling misinformation, eroding trust, and compromising democracy. Yes, to help us rugby tackle deepfakes, not children, at futureadvocacy.org/deepfakes. Castigat Ridindo Mores. haye ka sheekeeya ninkaas waa kuma ra'iisul wasaarihii waddanka miya UK ra'iisul wasaarihii miya war baa jiree bal clipkan labaadna ila daawada. But on the BBC, I haven't always been able to speak plainly and from the heart. So I'm grateful to Channel 4 for giving me the opportunity to say whatever I like, without anyone putting words in my mouth. If there is a theme to my message today, it is trust. Trust in what is genuine and what is not. haye boqoradii UK sheenadeeda u jeedin maxay idin la tahay? boqoradii UK hadda waa boqoradii Ilaahay baa boqor ah, ma idin la tahay hadallada ay ku hadlayso oo aanan caruurta isku qoorin inay ku hadlayso ma idin la tahay? hadda iyadii miya mise waa deep fake? muuqaalkan waxaa loo sameeyey in dadka tusaale looga dhigo in laga been abuuri karo dadka bulshada magaca ku dhex leh. bal muuqaalkan soo socdo ayaad ku garan kartaan in ay run ahayd iyo in kale. bal ila daawada. I was perfecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. I'm under strict orders from Philip not to, but as he's nodded off in front of Home Alone 2, would you mind awfully? You'll have to move that camera back. Everyone ready? bal muuqaalkan sida loo sameeyey ila daawada. But at least I still have my beloved Andrew close by. muuqaalkan waqti baa la geliyey, balse adigoo gurigaaga jooga ayaad si fudud u samaysan kartaa. waxaa only aad soo qaadanaysaa oo keliya sawirada aad doonto, hadday doonto dad magacle ha ahaadanaya haddii kaleba, kadibna sidaad doonto baad ka yeeli kartaa.
waxaan idinkula talin lahaa dhalinyarada youtuberkan la hadlaya in aadan waqtigiina aadan gelin hebel muxuu yiray iyo heblaayo maxay tiray oo aad kaga faa'iidaysaan ummadda aad indhaha u tihiin oo idin daawanayso inaad arrintan foosha xun oo berri ku dhici doonto mise ku dhici karta siyaasi Soomaaliyeed ama qof caan ah inta ay ku dhici lahayd shacabkiina uga faa'iideeya oo waqti geliya si dhibaatooyin kale ee Soomaaliya haatan aanan ka jirin aysan uga abuurmin. fadlan dhalinyarada YouTube-ka isticmaasho waxaan idinka codsanayaa in aad dadaashaan oo waqtigiina aad gelisaan arrimahan oo kale oo shacabkana dee muhiim u ah inay wax walba ogaadaan. muuqaaladan aad daawateen iyagoo full ah linkska hoosaan idin soo dhigayaa. fadlan dhalinyarada YouTube-leyda uga faa'iideeya shacabkiina aad indhaha u tihiin cilmigan oo dhammaystiran. haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato YouTube-ka ka heli kartaa, Google ka heli kartaa, buugaagtana waa ka heli kartaa. waa haddii aad diyaar u tihiin inaad wax uga faa'iidaysaan shacabkiina idin daawada. ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dhalinyarada YouTube-leyda oo ka hadlay muuqaaladan foosha xun ee magacayga lagu maldahay. sida xaqa aad uga hadasheen aad baan idinkaga mahad celinayaa. weligiinna sida xaqa ugu taagnaada. haddaad aragtaan waxyaabahan foosha xun, haddii aad aragtaan anigoo qaldan xataa, waxaan idinka rajaynayaa in aad itiraahdaan isoo wacdaan mise aad tiraahdaan laki waxaas waad ku qaldan tahay. haddii layga qaldan yahayne dee in aad ii hiilisaan. aad baan idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ood uga hadasheen. haddii hal iyo laba aan ka soo qaado anigoo halkan kusoo koobi karin dhalinyarada ka hadashay arrintan. Titi Cadde, aad baan kaaga mahad celinayaa sida xaqa aad u hadashay. waxaana aad tiray 12 bisha ayaan London usoo socdaa ee cashadii cali oo kale ma la ii geynayaa, ka badan baa lagu geynayaa. maxaa yeelay wiil Soomaaliyeed baa tahay, xaqa jecel. anigii adig weligan ismaanan maqal sida aad u hadashane aad baan uga helay. aad baan kaaga mahad celinayaa. soo dhawow ku leeyahay, gacmo furan ku soo dhawow, London ku soo dhawow. waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyahayga abwaankayga Daahir Calasow. Daahir, aad baan kaaga mahad celinayaa adigana sida aad uga hadashay. hadalkaagii iyo waanadaadii iyo amarkaagina waan qaatay abwaan. aad baad u mahadsan tahay. Xanafi Xaaji Maxamuud, abwaan, adigana weli islamaanan hadlin anigii adiga, laakiin xaqa sidaad uga hadasho adigana aad baan kaaga mahad celinayaa. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa Muna Muhiim. Muno waa gabaran aad isku naqaano, iyadana waa uga mahad celinayaa sida xaqa ay uga hadasho. Kaltuun Saxan Saxo, abaayo, adigana waa kaaga mahad celinayaa inkastoo aanan is aqoonin oo aad ila mid tahay Titi iyo Xanafi. Maslax Official, aboo, aad baad u mahadsan tahay adigana sida quruxda badan oo aad uga hadashay arrintan ood uga dhiidhide. Hal Abuur Cawil Bile, adigana aad baan kaaga mahad celinayaa walaal macaan. muuqaaladaada waan daawadaa sida xaqa aad uga hadasho. halkan kuma soo koobi kara, hal iyo laba un baan hadda ka soo qaatay, balse YouTube-leyda dhalinyarada xaqa ka hadasho anigu xaqan adeecsanahay oon taageersanahay. marka xaqaas ha lagu wada taagnaado. waxaana idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.